You guys hadda kor waxaa dhigan jira maxad oo ku yaala Abubakar Sidiiq maaragtay maxadkaas dhigan jira maxadkaas maalina soo kaca go'aana gaar waliga inaana ku noqoneenin matter of fact masaajidkaas go'aana ka gaara maalinkaas ay ugu dambeysay maalinkan waxay ahayd macalinku wuxuu noo dhigi jiray maxadka waxaa noo bilaabatay the topic of dhaxalka ma fahamtay dhaxalkaana la baraayay sida loo qaybsado hadduu aabaha dhinto sida loo qaybsanayo waxaas marka macalinkii hal mar aniga su'aalaha igu soo dhacday waxa wait a minute hadduu aniga aabahay maanta dhinto walaalkay iga dhaxal badan miya ha why macalinku wuxuu dhahay saani adigu wuxuu sheegay ma igu soconin macna ma iisameyn waxa ku dhahay it doesn't make sense ku soo celi because hadda fiir ciyaalka Mareykanka waxa lagu baraa critical thinking and reasoning wax kasta waaya weydiinay ilmaha Mareykanka soo kora wax ugu horeyso la baro waxa wax kasta inay su'aal ka weydiiyaan why inay fahmaan ma fahamtay ana waa weydiin macalinku waxa ku dhahay ma sheekadaas ma igu socoto waa walaalkay iga dhaxal badan aniga aabahay aniga sagaabo oo samanahay markaas wuxuu igu dhahay xuduudda Ilaahay baa waxaas adi xuduudda Ilaahay ma ka soo horjeedaa Ilaahay sharcigan keena sharciga Ilaahay inaan raacana waa anigu ana gaare masaajidkaas mar dambe ma ku soo noqonin macalinka galaaski mar dambe ku soo noqonin markii ay ugu dambeysay muddo ka soo wareegatay gabadha saaxiibo ahaan aabaheed dhintay anigoo aada ugu xumaa ma soo maalna hadal isku keenay waxa ku dhaabay I'm really sorry abaad inuu dhintay I wish maxaa ku dhaay inaa wax ku sameyn karo waxa u dhaada baa wax saas ay dhihin waxa dhaada aabahay uu dhintay laakiin walaalkii nool wax kasta u baahan nolosheeda walaalkii ay sameeyo aabahay waxa dhaada waa u xiisay laakiin ma tabiye dhahday inay wax iga maqan yihiin واودي why is that walaalkii kan iigada waxyaalaha aniga aabrabo qoftaan ayada iga laan dheereysneed wax kasta walaalkeeda u suubin jiray ma fahamtay markaa waxa igu soo dhacday go'aanka ka gaara masaajidkaas iyo galaaskaas seeto markaas waxa igu soo dhacday it makes sense now it makes sense why dhaxalka wiilasha moor u qaataan markaas fahmay macnaheeda because waxa fahmay hadii qof kasta sida diinta loogu talgal haduu u dhaqmo cadaalad moor dumarka helayaan because haduu odaga dhinto oo wiilka mas'uuliyadda qaado oo wiilka dhaxal moor helo gabadhan dhaxal hesho gabadha lacagteeda waxay hesha ayada iska leh laakiin wiilka mas'uuliyadda reerka dhan uu qaadayo head of the household uu noqonaya so wax kasta gabadhaas u baahan tahay wiilkaas hadda laga rabaa haddii tahay gabar la qabana ninkeedii oo soft life galiyay iyo walaalkeed oo dhaxalka heshay ay isku helaysaa you know war ilmaadeerayaal oo gacal diinta waa fair wa ilaahina waa fair odayaashan Soomaalida ama dadkan dugsiyada macallimiintan dhigaan oo ciyaalka child psychology fahansaneen critical thinking fahansaneen maxaa ku dhahay oo macallimiinta laga dhigo oo marka su'aalo ku weydiiyaan kugu xiraayaan ilaa xuduudiisa waa moral of my story is hadda laga baa aniga galaas rabaa inaan furto maadaama I have the masters of counseling waxaa ku fikiray galaas inaan furtaa rabaa oo aan noqdo macallinka macallimadiisa macallimiintan caruurta dugsiyada u dhigaan aan waxa rabaa aniga macallin u noqdo horta baro child psychology critical thinking reasoning ina horta waxaas baro si ayagiyo diyaar ah oo ilmihi wax ka dhaadhici karaan ilmihi wax u baraan